ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. maanta muxaadaradeena waxay ku saabsanayd xijaabka. ilaahay subxaanahu wa tacaala gabdhaha mu'minaadka wuxuu amray inay xijaabtaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha. culimadu waxay ku fasiraan jamiican badan waa inay gabadhu asturtaa. maa dahara minhana culimada waxay ku fasiraan waxa dharkeeda oo muuqda. hadda markuu gabadhu xijaaban tahay qofku way soo jiidanaya, xijaabkaas iyo quruxdaas ayay soo jiidanaysa. taas ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay. ama gabadhu haddii si kadisa dharku uga faydmo, labadaas ayay culimadu waxay ku tilmaamaan ilaa maa dahara minha. qowl saddexaadaa jira oo tilmaamaya inuu wejiga iyo gacmaha uu yahay. kaasna waa qowl daciifa. haddii la fiiriyo axaadiista kusoo aroortay waa axaadiis daciif. marka waxaa loo baahan yahay gabadha muslimadda inay asturto jidhkeeda oo dhan, madaxa laga soo bilaabo ilaa cagaheeda. taasna waxaa kuu tilmaamaysa oo ku cadaynaysa meel gabadhii loo diiday meel la amray gabadhii inay lugaheedii asturto, miyaa la banaynayaa wejigii oo quruxdii dhammayd ay ku taalo. taas ayaa waxay cadaynaysaa inay aayadan loola jeedin oo waxyaalaha kusoo aroorayna ee axaadiis daciifa ay tahay. marka gabadha muslimadda ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadan wuxuu ku amray inay isxijaabto oo jidhkeeda oo dhan asturto. ilaahay subxaanahu wa tacaala aayado badan wuxuu ku leeyahay inuu xijaabka uu gabadha muslimadda ilaahay subxaanahu wa tacaala ku waajibiyey. walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihinna walaa yubdiina ziinatahunna ilaa libucuulatihinna aw aabaa'ihinna aw aabaa'i bucuulatihinna. aayad kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha nabiyu qل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وإن دركودا isku asturaan oo saxaabiyaadka markii aayadaha xijaabka soo degeen jirkooda dhan ayay astureen oo meel ka banaan ma jirin. marka waxaa loo baahan yahay gabadha muslimadda inay amarka ilaahay subxaanahu wa tacaala ay qaadato. shuruud badan ayuu leeyahay xijaabka oo loo baahan yahay gabadha muslimadda inay ku baraarugto, waalidkana ay ku baraarugaan oo gabadha ay dhaleen ama ay mas-uulka ka yihiin ay ku amraan. shardiga koowaad waxa waaye xijaabka ay gabadhu gashanayso sida hadda soo sheegnay inuu asturaayo jirhkeeda oo dhan ousan meelna ka banaanaanayn. shardiga labaad waxa waaye gabadha muslimadda ah inay dharkii gashanayso uusan ahayn dhar qurux. hadda wax badan waxaa arkaynaa gabdhuhu waxay wataan xijaabo marka horeba ayagaba soo jiidanaya raggi, oo marka horeba quruxa oo ama sharaxaad leh ama muxuu ahaa marka horeba dhar aad u qurux badan laga sameeyo xariir iyo wax kale ah. marka dharkaas gabdhaha muslimaadka looma baahna inay gashtaan. waa inuu xijaabka ay gabadhu gashanayso xijaab qurux badan waa inuusan ahayn. shardiga saddexaad oo loo baahan yahay gabadha muslimadda inay ilaaliso xijaabkeeda ku ilaaliso waa inuusan ahayn dharkay gashanayso dhar khafiif ah. oo waxaa loo baahan yahay dharkay gashanayso dhar culays ah oo aada u culus inuu yahay oo aan jidhkeeda suuraynayn. rasuulka sala allahu calayhi wasalama wuxuu ku tilmaamay sinfaani min ahli nnaari lam arahuma. laba qaybood ama laba kooxoodoo dadka naarta gelaya ka mid ah oo aan weli arkin baa jiro u yiri rasuulka sala allahu calayhi wasalam. wuxuuna ku tilmaamay rasuulka nisaaun kaasiyaatun caariyaat, gabdho qaawan oo isu malaynaya inay asturan yihiin. dhar way wataan
laakiin way qaawan yihiin sida haddaba aragno gabdho badan oo qaawana arkaysaa markaa tidhaha xijaabo waxay ku leedahay maxaa iga bannaan cawradeedii iyo jidhkeedii iyo quruxdeedii oo dhanna way bannaan tahay marka waxaa loo baahan yahay dharkii gashanaysa gabadhu inuusan ahayn dhar khafiifa shardiga afaraad waa inuusan ahayn dhar gabadha ku dhegan oo jidhkeeda sifaynayo shardiga shanaadna waa inuusan ahayn dhar cadar la soo mariyey ama bukuur la soo mariyey oo markuu jidka marayso ragga caraftaas iyo raggu soo jiidanayo waxaa kaloo iyadana shuruudda ka mid ah oo rasuulka sala allahu alay wasalam gabadha inay iscadriso uu ka nahiyey rasuulkana wuxuu ku tilmaamay inay zaaniye tahay haddii gabadha intay cadar soo marsato laamiga soo marta raggana cadriyaan cadarkaas oo carafsadaan rasuulku waxay ku tilmaamay gabadhaas inay zaaniyad ay tahay waxaa kaloo iyadana ka mid ah dharkay gashanaysa gabadhu dhar muxuu ahaa dadka caamka ah ama muxuu ahaa dhar qaali aada u ah inaysa gabadhu gashan oo dadka caamka ah gaalada iyo waxaasoo kale ah dharkay gashanayaan waa inuusan la mid ahayn shardiga ku xiga waxa waaye dharkay gashanaysa gabadhu inuusan u ekayn dharka rag gabadhaha hadda waxaa arkaynaa gabdho badan oo laamiga marayo jayniskii ragga ay wateen oo ragga ku labisan jireen ayagana ku labisan taas ma banaano rasuulka sala allahu calayhi wasalamna waa lacnaday gabdhaha isu ekeysiinaya ragga oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam soo xadiidku warinayo wuxuu yidhi abu hurayre warinayo ibn cabaas warinayo wuxuu yidhi lacana rasuulu sala allahu calayhi wasalama almar'atu talbasu libsata arajul marka waxaa loo baahan yahay shardigaas ama shuruudahaas hadda aan soo sheegnay inay gabadhu iska ilaaliso xijaabkii gashanaysana shuruudahaasay ka fiiriso waxaa kaloo iyadana muhiima culimmadaasa haddaba soo tilmaamnay axaadiidta tilmaamaysa gabadha wejigeeda iyo gacmaheeda inay banayso inay axaadiidtaas wax badan oo cilal ah oo culimmada tilmaameen inay daciif ka dhigaysa axaadiidtaas inay kusoo aroorto marka waxaa loo baahan yahay qofka muslimkaa inuu qaato amarka ilaahay subxaanahu wa tacaala siday culimmada u fasireen ibn cabaas iyo culimo badan u fasireenna inay aayadaha ilaahay subxaanahu wa tacaala loo qaato waxaa kaloo ayadana muhiima qofku inuu ogaado fawaa'id badan ayay leedahay gabadhu inay is-asturto oo xijaabka ay labisato waxaa ka mid ah inay ilaahay subxaanahu wa tacaala adeecdo waxaa kaloo ayadana ka mid ah inuu xijaabku cifah iyo sitri iyo gabadha cafaaf u yahay oo gabadhu asturaayo oo wax kastoo xumaan ahna uu ka fogeynayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika wabanaatika wanisaa'i lmu'miniin yudniina calayhina min jalaabibihin dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn waxaa kaloo ayadana ka mid ah inuu fitnada gabadha ka fogeynayo ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamaya waidaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraa'i xijaab dalikum aطharu liquluubikum wa quluubihim taas ayaad u dahaaro dhow oo quluubta inay daahir noqdaan oo fitnada ka fogaadaan ugu dhow qofka muslimka inuu markuu gabadh wax weydiisanayo uu xijaab u dhexeeyo waxaa kaloo ka mid ah xijaabku inuu sitri yahay oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay in allaha caza wajalla xayiyun satiir yuxibu alxayaaa waasitr ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa jecel waxaa kaloo ayadana ka mid ah inuu taqwo uu yahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walibaasu taqwa dalika khayr waxaa kaloo ka mid ah inuu xijaabku iimaan yahay oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay alxayaau waaliimaanu qurinaa jamiican waxaa kaloo ayadana muhiima qofka muslimka inuu ogaado inay gaaladu nagula dagaalamayso gabdhaha in xijaabka laga dhigo lianna qofka mujtamaca muslimka hadduu gabdhihiisa xijaabka ka tagaan waxa ku badanaya wax kasta oo macaasi ayaa ku badanaya markaasaa inaga iyo gaalada wax noo dhexeeyo oo aan ahayn inaan inaga muslimnimo sheeganayn ayagana ay sheeganayaan gaalnimo mooyaane wax kale nooma dhexeeyo marka waxaa loo baahan yahay in lagu baraarugo gaalada dagaalkii nagula jirto oo ah inay gabdhaha xijaabka dhigaan oo zinadu nagu badato oo fitantiina nagu badato oo markaas kadib ilaahay gaaladii nooga guuleeyo oo muslimku saas uu muxuu ahaa hasiimo ugu dhacdo sida haddaba noo muuqato 1 milyaar ka badan 2 milyaar oo dhadhow muslima adduunka ku nool haddana gaaladii ayaana maamulayso oo waxay rabta naga samaysanaysa qof dowlad muslima ama dad muslimiin oo iska celin karana ma jiraan marka waxaa loo baahan yahay in la ilaaliyo ilaahay amarkiisa subxaanahu wa tacaala
saddex arrimood ayaa kusoo khatimayaa. waxaana waaye qofka muslimka ah oo waalidka ama mas-uul gabar ka ah waxaa loo baahan yahay inuu ilaahay subxaanahu watacaala amarkiisa u qaato. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran waquuduha annaasu walxijaara. waxaa ka ilaalisiin naftiina iyo caruurtiina iyo dadkaa mas-uulka ka tihiin naar ka ilaaliya ayuu ilaahay subxaanahu watacaala u naar. maalinta qiyaamana rasuulka sala allahu alay wasalam wuxuu tilmaamay qofka muslimka oo mas-uulka in la weydiin doono mas-uuliyaddaas. oo rasuulka sal allahu alay wasalam wuxuu yihi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati. qof kaste waa arrin ayuu ilaahay u dirsaday, arrintaasna maalinta qiyaama waa la weydiinaya. markaasuu rasuulka wuxuu yihi waalrajulu raacin calaa ahli beyti. wuxuu mas-uul ka yahay oo loo dirsaday ahli beytkiisa, dadka asaga ku hoos nool oo mas-uulka u ka yahay. marka maalinta qiyaamo aabbow waa lagu weydiinaa ama walaalow markii gabadhaada iyadoo xijaab la-aana soo baxdo adna aan raalli uga noqoto. hadda waxaa arkaysaa dad badan oo masaajidkii ku tukanayo oo ahlu masjida, haddana dadkii gabdhihii mas-uulka ka ahaayeen ama qaraabadooda ahaa kula sheekaysanaya jidka ama meel makhaayada la jooga ayagoo aan xijaab wadan. waxaa laga yaabaa inuusan dhihin adeerow ama aabbow xijaabka waxaa wadatid xijaab maahe orod soo xijaabo magaalada ka xaran, oo uu raalli uga yahay saas. taasna maalinta qiyaamo waa lagu weydiinaa ogow. arrinta labaad waxa waaye waxay ku socotaa oo waajib ku tahay culammada inay mar kastaba kusoo celceliyaan oo caddeeyaan inuu xijaabku waajib yahay oo sifaadkiisa iyo shuruudiisana ay sheegaan. arrinta saddexaad jamiica almuslimiinay waajib ku tahay oo waxa waaye alamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar. gabdhaha haddii gabadh kastoo xijaab la-aan soo baxda markuu qof muslima arko oo dhihi laha walaalay waxaa wadatay xijaab ma ahe xijaabo, way isku xishoon lahayd, markaasi gur ku laaban lahayd oo soo xijaaban lahayd. laakiin markii nagu badatay gabdhihii qaawana ayaa naga tegay iimaankii oo amarkii ilaahay subxaanahu watacaala ka tagnay. waxaa arkaysaa gabar qaawan oo dad badan oo muslimiina dhex maraysa, hal qof oo ka mid ahna uusan dhehaynin walaalay waa qaawan tahay walaalay xijaabo, amarka ilaahay subxaanahu watacaala. maalinta qiyaamana inta qof kastoo muslima oo amarka ilaahay subxaanahu watacaala ka gaabiyey maalinta qiyaamo waa la weydiinaya. marka waxaa loo baahan yahay inaad dhammaanteen isku raacno gabadh kastoo muslimadoo soo baxda xijaab la-aan qofkii arka unu yara walaalay xijaab ma wadatay xijaabo. taas ayaa waxay noogu dhowdahay inuu ilaahay subxaanahu watacaala raalli naga noqdo. ilaahay subxaanahu watacaalana oo ummadda muslimka ilaahay subxaanahu watacaala khayrka waafajiyo, oo ilaahay khasaa-intiisa u furo, oo ilaahay gaalada uga guuleeyo, oo ilaahay awoodii muslimka uu lahaa ilaahay u soo celiyo. waa markii amarka ilaahay subxaanahu watacaala la qaato oo ummaddan waxay ku sharfaneyd la qaato. kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cani ilmunkar. ummadaha soo baxda midda ugu khayr badan waxaa ku noqonay inaan amarkana farno, wanaaggana farno, xumaantana iska reebo. marka waxaa loo baahan yahay qof kastoo muslima wixii xumaan oo arko inuu reebo, wax kastoo wanaagana uu dadka muslimka faro. waxaan kusoo dhamaynaynaa khudbadeena maalintan jimcada ah. sunanka kusoo arooray waxaa ka mid ah qofka muslimka inuu badiyo salliga nabiga sala allahu calayhi wasalam. oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay habeenka iyo maalinta jimcada igu salliya oo akthiruu calaya min asalaati fa ina salaatakum macruudatun calayh. waa liisoo bandhigayaa salliga igu sallinaysiin ee salaada iyo salliga ii badiya ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam u leeyahay. rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiid kale wuxuu leeyahay man sallaa calaya salaatan waaxida sala allahu calayhi biha cashra. qofkii hal mar igu salliya ilaahay subxaanahu watacaala ayaa 10 jeer ku sallinaya ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam u leeyahay. salaada ilaahay subxaanahu watacaala waa inuu kuu naxariisto oo ilaahay uu magacaaga ku sheego fi lmala-i lacla, samada ilaahay magacaaga uu ku sheego. marka waxaa loo baahan yahay inay arrintaas dadka muslimka ku baraarugaan. mar kastana rasuulka sala allahu calayhi wasalama salligiisa la badiyo. hada wasallu wasallimu cala raxmati lmuhdaa kama amarakum allahu subxaanahu watacaala faqaala jala man qaal ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala alnabi ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasallimuu tasliima. allahuma salli cala muxamadi wacala ali muxamed kama sallayta cala ibrahima wacala ali ibrahima inaka xamiidu majiid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وذل الكفر والكافرين، اللهم ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.